aan run ahayn waad la socotaan biixina waa ogyahay rag kale ogyahay wixii dagaaladii ka dhacay berbera kuwii ka dhacay hargeysa kuwii ka dhacay dhiigga xuni ku daatay burco kuwii ka dhacay kalshaale buuhoodle kuwii ka dhacay laascaanood kuwii ka dhacay tukaraq waxaasoo dhan waad u taagneedeen marka in la yiraahdo 30 sanadood oo nabadgelyo ah bay haysatay Soomaaliland waa inaccurate waxaan sax ahayn wey maanta Somaliland wuxuu sheegay mataqaana biixii laftiisu in beelaha kale ama dadka kale ee ku nool in maartay la wada gaarsiiyo horumarka ka dhacay Somaliland arrintaas aan idin sii macnaynaya Somaliland waxay heshay garowshiyo fara badan waxay heshay dhaqaale fara badan oo dibadda ka yimi waxay heshay xitaa dhaqaale ka yimi dawladda federaalka wasaaradda planningka ee Somaliland warqad bay soo saartay report bay soo saartay gobolada bariga Sanaag iyo Sool waxay ku qiratay inay gaadhay 5% wixii soo gaaray 5% waadna reference waad ku arkaysaan haddaad qoraalka aragtaan marka haddii markaa cadaalad iyo laga hadlayo arrimo noocaasa waxaan jecelahay Somaliland inay dadaal arrintaa ka muujiso waa midda labaad wey saddexaad saacadda aynu joogno waxaa Somaliland ku xidhan oo jeelasha ku jira dadkii jaraa'idka qorayay waxaa ku jira dad salaadiina waxaa ku jira meelaha qaarkood oo laga aaminsan yahay xagga unionka Soomaaliya oo laga soo horjeedo secessionka waxaa jooga ciidamo aanad tiradeedu aanad garan karin intee la eg tahay oo caburiska lagu hayo waxaa u dambeysay markii hadda laga soo saarayay dadka u dhashay Baydhabo xooga lagaga soo saarayay dalka waxaan ka xumahay in gathering inta la isugu yimaado aan lagula talin Somaliland inay midnimada Soomaaliya ka shaqeyso oo loo sacabinayo aad baan uga xumahay in Soomaalinimadii nationalismkii Soomaalidu oo halkaa gaadhay in la yiraahdo qofkii gobolkii goosta ha loo sacabiyo oo hal barays hala siiyo arrintaas waa khalad weey